maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa deeq waxa uu maanta gaarsiiyay deegaanka Sabiib iyo Caanol oo ka tirsan gobolkaasi Shabeellaha Hoose. deegaankaas dhawaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay kala wareegeen xarakada Al-Shabaab. Wariyaha Cabdiweli Cali online ayaa warkan wuxuu ka soo diray magaalada Afgooy. agabkan oo ka kooban maacuun iyo alaabo kale oo muhiim u ah qoysaska kala hore ka barakacay deegaanada Sabiib iyo Caanol ee iminka dib u dejinta loogu sameeyay deegaanadan ayaa waxa soo dhiibay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax waxaana goobahooda dadkan ugu qeybiyay xubno ka mid ah maamulka degmada Afgooy iyo gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose. in ka badan 900 oo qoys ayaa si rasmi ah uga faa'iideystay deeqdan waxaana mas'uuliyiinta maamulka degmada Afgooy iyo maamulka gobolka oo goobta ka hadlay ay cod dheer ugu baaqeen hay'adaha samafalka iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya in dadkan la soo caawiyo maadaama lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. baca saliyal iskoobe farkeeti badeey iyo kaniinigii biisiyaha oo kaloriinka ahay wax walba ay ka kooban tahay alaabtan ilaa iyo 16 shay taawadii lagu duwanay burka ku jirta 900 qoys ayaa si hordhacay maanta loo soo gaarsiiyay. waxaan rajaynaynaa inaysan maanta ku ekeen oo baahida bulshadana aysan ku ekeen intaan aysan dabooli karin oo intaan in ka badan ay u baahan yihiin. maamulka gobolka dawladda koonfur galbeed dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan u baaqaynaa maadaama deegaanka Sabiib uu yahay deegaan amni ah in wixii deeq ah oo la soo gaari karo la soo gaaro. الله وصي وقابلني كتير كبركة إبراهيم آدم علي نجح فري أيو بلن قاضي أديجيدا بدنا فري ما دونا ديجان كان وين كنا بودي وين بدأ نقطي كم من قبل هانا أنا وكيل كتير قبل كنا ما نتوقع نقدينا وبدينا أوصل في شيء يسوي في شيء أنا أكيد إنه سيدات كان لوجار فيها أيو سجال كان بقوله كويس عرفت الوقت طلع جري إن السنة بتكليها كجارته taasna waan xaqiijinay anaga goobjoog ah saas in lamida deegaanka waxa ka socdo horumarro badan oo ka socdo saad ogtiin marka nabadgelyada deegaanka ay u geysteen burbur iyo qaraxyo iyo dhibaato u geysteen dhibaatadaasna markii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka xoreeyeen nimanka maamulka gobolka gudoomiyaha gobolka hogaaminayo iyo kan dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo hogaaminaya madaxweyne Cabdulcasiis Xasan lafta garaan waxay ka soo jawaabeen in deegaan walba oo laga xoreeyo nimanka nabadgelyada ah in iyadoo maamulka gobolka ku shaqeynaya rabitaanka iyo fikirka dawlad goboleedka koonfur galbeed in horumarin loo sameeyo dib u dhis. maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa dhowr jeer oo hore sidaan oo kale dadkan soo gaarsiiyay caawinaad kala duwan balse wali baahidu way taagan tahay. Cabdiweli Cali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose.